wararka ka imaanaya Soomaaliya waxa ugu waaweyn madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliya oo Muqdisho ka wada kulamo xasaasi ah. Hogaamiyaha Puntland oo dhawaan sheegay inuu u tartamayo madaxweynaha Soomaaliya oo wajahaya dabayl siyaasadeed oo cusub. Farmaajo iyo Fahad oo qorshahooda la fahmi waayay iyo xog aan idinkaga hayno. midowga musharaxiinta oo kiis siyaasadeed dusha loo saaray. qodobadaas iyo kuwa kale oo waaweyn ayaan idinla wadaagayaa. ha hilmaamin inaad YouTube-keena subscribe saarataan gambaleelkana furataan muuqaalkana aad share garaysaan. haddii aan ku hormaro madaxda afarta maamul goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle ayaa dhammaanba yimi magaalada Muqdisho waxayna kulamo la qaadanayaan xildhibaanada oo nin walba soo saartay isagoo u sheegaya qofka ay codka siin doonaan iyo sidii ay mabda isku mid ah u yeelan lahaayeen. waxaana ka maqan xamar madaxweynaha Jubbaland oo isagu hadda ku jira rafashadii ugu dambeysay ee kuraasta ceel waaq la wareejiyay. wuxuuna xildhibaanadiisa Muqdisho jooga ku ballamiyay guriga madaxweyne Dani uu ka degan yahay Muqdisho, halkaas ayayna ku xareysan yihiin. sidoo kale Dani oo sharaxan xilka madaxweynaha Soomaaliya rabana isagoo haysta madaxtinimada Puntland inuu u tartamo madaxweynaha Soomaaliya. diyaaradna ku soo qaatay shirgudoonkii baarlamaanka Puntland ayaa waxa hadda qarxay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo isagu hadda Puntland ka ah kusime madaxweyne Axmed Karaash oo muddo ciil la aamusnaa dhowr jeer oo horena ay isku dhaceen Dani ayaa hadda waxa uu bilaabay inuu xididada u siibo Dani iyo tiimkiisa, wuxuuna wadaa qorshe ballaaran oo uu ku doonayo inuu kula wareego hoggaanka guud ee Puntland. waana mid dabarjab ku ah madaxweyne Dani. dhinaca kalena Farmaajo iyo Fahad oo 5 sano maamulayay Soomaaliya haddana raba in ay qaataan xukunka dalka ayaa waxaa hadda soo baxaya warar runta u dhow oo sheegaya in ay la tacaalayaan caqabado badan oo siyaasadeed, waxaana lumay waxyaabo badan oo ay u arkayeen in ay si fudud ku heli doonaan. waxaana guuldarrooyinka Farmaajo iyo Fahad haysta sabab looga dhigayaa dagaalka iyo khilaafka aan weli dhammaan ee waqtiga dheer taagnaa ee kala dhaxeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isagu maamulaya doorashada dalka iyadoo lagu jiro xilligan doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha in uu sii adkaado oo wax xal ah laga gaari waayo khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo filla Soomaaliya. waxay xaalka ku adkaynaysaa Farmaajo oo aan marna filayn in Rooble sidaan uga adkaan karo. Farmaajo iyo kooxdiisa oo aad u dhisnaa haystayna meelo badan ayuu Rooble beegsaday tan iyo markii uu bannaanka u soo baxay khilaafkoodu, wuxuuna Rooble soo xiray albaabo badan oo ka mid noqon lahaa dib u doorashadiisa. Farmaajo wuxuu burburiyay rajadiisii ahayd inuu mar kale Soomaaliya madaxweyne ka noqdo. dhinaca kalena midowga musharaxiinta mucaaradka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka aamusay dilkii dhawaan magaalada Muqdisho loogu geystay gaar ahaan degmada Kaxda Abwaan Badal Jaamac Hirsi, waxayna dhinacyada kale ku eedeynayaan in ay qayb ka ahaayeen manajdo wax weyn oo daliil u noqon kara ka aamusnaanta mucaaradka oo aan ka ahayn inay Farmaajo iyo kooxdiisa oo uu taageero weyn u ahaa ay ku xumaynayaan ayay leeyihiin dhinacyada doodan u leexinaya dhinaca mucaaradka. sidoo kale ma jiro wax falcelin ah oo ka yimi dhinaca mucaaradka, lamana oga sida ay isaga bariyeeli karaan eedan aadka u culus. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararka maanta oo aan ku eegaynay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa siyaasadda.